hadalhaynta ku saabsan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ayaa baraha bulshada lagu wadaagaya 48 saac ee ugu dambeysay kadib markii ay soo baxday inuu wajahayo xaalad caafimaad oo dhalisay in la joojiyo jadwalkiisa shaqo ee toddobaadkan. wax walba waxa ay cirka isku shareereen kadib markii madaxtooyada Turkiga ay baahisay inuu Erdogan baajiyo booqasho uu ku tagi lahaa Imaaraadka Carabta sabab la xiriirta madaxweynaha Imaaraadka Carabta oo xanuunsanaya. laakiin maxaa dhaba ilaa hadda ma jirto war-saxaafadeed ama hadalhayn ka soo baxday Abu Dhabi oo lagu falceliyay hadalhaynta la xiriirta xaaladda caafimaad ee Al Nahyan. mana ahan Erdogan oo kaliya cidda baajisay socdaalka ay ku tagi lahaayeen Abu Dhabi ee madaxweynaha Greega ayaa isagana baajiyay booqasho horey loo qorsheeyay. laakiin wax su'aal gelinaya dhabaanshaha xaaladda caafimaad oo qasbaya inuusan wax shaqo ah qaban karin Mohammed Al Nahyan inay jirto. dhinaca kale Soomaaliya is-araggii ugu horeeyay ee u dhaxeeyay maamulka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo ay weheliyaan wakiilo baarlamaanka ka tirsan iyo isbahaysiga mucaaradka ayaa ka socda hotel ku yaala garoonka diyaaradaha ee caasimadda Muqdisho. ma jirto anjado gaar ah oo ka baxsan is-arag oo kulankan laga soo bandhigay. dowladda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliya loo ogolaaday daabacaadda baasaboorka ay wadaagayaan dalalka ururka iskaashiga dhaqaalaha ee bariga Afrika ee EAC iyadoo warbaahinta dowladda ay maanta baahisay in wakiilka Soomaaliya ee ururkan EAC Danjire Ilyas Ali Xasan uu ku wargeliyay wasaaradda amniga gudaha iyo hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya go'aan rasmi ah ee Soomaaliya u ogolaanaya inay daabacdo baasaboorka EAC sida ay hore u sameeyeen dalalka East African Community. waxa ay Soomaaliya bedelaysaa baasaboorka ay hadda adeegsadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay yeelanayaan midab buluug ah kaas oo dusha sare loogu qorayo East African Community. tusaale ahaan sida ka muuqata baasaboorka Uganda, balse ma cadda in si xadidan iyo shuruudo loogu bixin doono ama sida dalalka kale dhammaan muwaadiniintooda la siin doono si ay ugu fududaato isku socodka xorta ah ee dalalka East African Community. baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo. hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqaysto, waxna lagu barto, laguna safro adduunka oo dhan. haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan, barashada luqadda Ingiriiska waa furaha kuu horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn. macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kuu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh, qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah, maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer, xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan. haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo, ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoose.